يوم ما تبغى كهذا صعب توبك سامي وقول حله لانتا ها انت هذا بدن كور استاغ horumarkooda intooda badan ka reebay facooda baraad inta badan ka reebay dunida dhaqaaqeeda dunida maalin ka dambaysa saaxib way update gareysa waxaana loo baahan marba is update gareyso in la jaan qaadadi in la socoto jaha walba aad waayo marba is update gareyso waxa daba socod fursad baraad fursadan ugu waa mid kaliya maanta nolosha isbedel ku sameey kartid waa mid kaliya dhalintu raadiyaan baraada waa mid kaliya loo baahan yahay waqtigiisa in uu faa'iideys baraada balse haduu caajisku yahay hubaal kama faa'iideysan doonto waayo caajisku waa dilay fursadaha baraada waa cadowga kugu hoosnaan aan ka warhayno baraada waa cadow loo baahan in la xorood waayo kuma ogolaana barashada fursadaasi kuma ogolaana in far u dhaqaajiso fursadaasi saadagta wax isdii kara waa xabsi aadan ogeyn baraada waa cadow loo baahan in ka xorood baraada xornimadu waxay tahay baraada in mindsetka loo maamulo baraada midaas ayuu kugu sameeyay caajis u fiirso mar walba caajis qab meesha ku jihana fiirso si fiican u fiirso ha wuxuu ku jihana oo kaliya sariirtaas miyaa xal ku noqotay maya waayo sariirtaas hadaad tagtid wal ma jiifanaysid waxa gudaha ku guuxay waxa isdiiday baraada marxaladda ku jirtid saadarta waxa kale sa marxalad aad u liitay baraada waxaan ku dhaafayaa fursadaha waxaan meesha ku dilmaya waqtiga waayo waxa taa dhalinyaro baraada waxa haysa energy baraada balse waxa moogan tahay cadowga kugu hoosnaa oo kaliya caajisku nabiga ayaa ka magal jiray sallallahu alayhi wasallam adin waxa laga baahan ka magan gashay baraada waa midka ugu halista badan qofka dhalinta wajaha baraada waayo waxa haysa waqti baraada waxa haysa energy laakiinse waxa waqti ay energy dilay waxa tahay caajiskan baraada wuxuu ku gelinaa nolol aadan ku qanacsaneyn wuxuu ku dhaafinaa fursad maanta nolosha isbedel ku sameeyay saadarta marka waxaan jeclaystay xalka caajiskan inaan kula wadaago waayo mar walba caajis dareentid sariirtaas ayaa talo ku noqonayso mana ku helayso hurdo raaxale waxaan u dul saarnaan doontaa sidii meedka oo kale looma baahna midaas baraada waxaa loo baahan yahay kaliya in markaasi a protect sameyst waxaan video kula wadaagayaa heerkaas markuu kula sida iskaga xalin lahayd aan jecel video inaan kula wadaago waxaan isdhiig raacimaan kan waa ciwaanka uu saameynta badan saaxiibadii amaanta la wadaago ciwaanka sidaas u qiimaha badan aan kula wadaago kaliya hal codsi wata codsigaas waa inaad subscribe ii saartid like tan u dhiirigelish share tan saaxiibka ku gaarsiiday macquulta nikaan saaxiib aan kula wadaago halka koowaad waxay taa baraada qorshe maalmeed sameyso dabcan qorshe maalmeedku wuxuu ka caawinayaa in waqtiga aad saf garisid qorshe maalmeedku wuxuu ka caawinayaa in hawlaha ku kalfudaan macnaha hadii hawlaha maalmaha iska dul saarmaadaan hadhow waxa qabataa waa inaysa heer waxa gaaraysa wax dhanka hormaadaan wuxuu kale ku fududeynayaa inaad ka faa'iideysato fursadaha sababtoo ah caajisku wuxuu beegsadaa fursadaha si uusan u beegsan waa inaad sameysana qorshe maalmeed waayo qorshe maalmeedka marka dejid waxa ka kala fududaanaya hawlahaagi waxaan ku soo baxaya fursado kale aad u bilaaran sidaas waxaa awood u yeelanaysaa inaad ka faa'iideysato fursadaha sidaas qorshe maalmeedka waa inuu ka koobnaado baraada AEB eedan waxa loo baahan saaxib inuu ka koobnaado saacad walba waxa qabalid qofka la kulmis iyo waxa akhrinaysa taas waxay ku fududaynaysaa saaxib qorshe maalmeedka inaad si fudud u guulaysto macnaha hadii aad ku qortid wax walba aad qabanaysid hubaal waxa ku kala fududaanaya baraada hawlaha oo miskaadu dul saarmaan saadarta marka waxa awood u yeelanaysaa midka marka dishid inaad ku farxad mid kale aad dishid ama macnaha midka marka aad dhimaysid kadib mid kale aad dhimaysid B waxaan ku magacaabeynaa save time sababtoo ah qodobka B wuxuu ku ilaalinayaa waqtigaaga waqtiina ugu waa wax u qiimo badan saa hor ku sheegay caajis waqti ayuu bagsadaa si waqtiina u save gareeno waa inaan isticmaalnaa B-na waxa loo baahan inuu ka koobnaada waxyaabo aad passion ku tahay waxa zaid ku xiiseynayso waxa si gaar ah u jeceshahay mar walba inaad baratid ama waxaas inaad sameysid ogoomna waa inuu ahada waxaas wax future ku anfacay ama wax waqtigaas ugu anfacay ma waqtiga inaad ku bardiras wax macno lahayn waxa adigoo xiis u qabo waxa loo baahan inuu ka anfacay wax anfacad ku leh inaan noqdo loo baahan saadarta sababta B u sameeyay waxay tahay hadii mid kamid ah kugu adkaado qodobada qorshe maalmeedkaaga waxa ku bedelaysaa mid ku jira B sambal waxa kugu adkaaday inaad maanta wax dhisaan garisid waxa ku bedelaysaa waxa kale axiisu qabtid sida wax in akhrista amal inta waqti ka dhum lahay oo hadhow sirri tagleed waa bixisa buuga jecesha qaadanaysa waxa taasha meelaha cafeteria waad akhrinaysaa saadarta marka buugaasina wax waa ka faa'iiday kumana caajisin waxaana meeshaas ku saf garisma waqti waxaan ka hortagtay inuu caajiska ku hago oo sirrid ku geey saadarta ma wax isdhihi karaa qodobkan aad buu u anfacay inaad jadwalka u qaybsid labo AEB midna aad ku qortid qorshe maalmeedkaaga midna aad ku qortid waxa xiiso u qabtid si gaar ah u xiiseynaysid ogoona muhiim ma aha waxa qorshe maalmeedka ku jiro inuu B jiraado waxa muhiim ah kaliya waxa inuu xiiseynayso kaliya qodobkan fiir gaar u lahaw saaxib biyaha qabow waa wax ugu faa'iidada badan qofka bini'aadanka biyaha qabow waa secret brother u baahanta mar walba in ka warhaysid waxa loo baahan inaad subax ku qabaysto waxa loo baahan xilli walba caajis dareentid inaad si ku qabaysto waayo wuxuu jirkaaga ka dhigaa mid active ah mid firfircooni leh adin waa midka u baahan tahay caajisku marxaliis waxa kamid ah inuu jirkaaga xirxirayo oo markaas aadan uu ku gelinayo nolol abursanaan ah taasoo sababaysa markaas ina wax dhan qabeyso nolosha dhan ka hormaado balse hadaa biyaha qabow ku qabaysatid huwa waxa helaysaa firfircooni brother waxa naqanaysaa waxaad soo baxay amal waxa naqanaysaa qof markaas nolosha u firfircoon saadata marka biyaha qabow wax isdhihi karaa aad buu ku caawinaa xilli caajis dareemaysid
jirkaagii wuu furfurayaa oo jirkaagii wuxuu ka dhigaa mid active ah soo jeeda dadka hurdaya maxaa biyo qabow loo shubaa qofka markuu jiifo oo biyo qabow loo shubo wuxuu ka caay sidii macnaha oo nin maantana soo jeeda amal hamru booda macnaha waxay tahay biyo qabow ayaa jirkiisa hamar heegan gelinaya oo wuxuu ka dhigaa mid active ah saa dadka waxa isdhihi karaa haddii aad dareento caajis waxa xal ku ah inaad ku qabaysid biyo qabow aad bayna midaas ka caawinaysaa si aan caajisba u xalino waxa u baahanahay technique walba as dhig karno caajiska ugu hortay kartaa ina isticmaalo okay technique-gan wuxuu yahay ina ka tagna dhafarta runtii dhafartu waa qayb kamid ah dhaqankeena hadii aan dhalinyaro soma balse ugu saaxib marka aad doonaysid maalintaas inaad wax qabatid oo haadwog oo shaqaysid waxa loo baahan yahay inaadan dhafarin sababtoo ah markaas wuxuu soo kacay adigoo dhafarsan waxa kugu adkaanayso holaha inaad qabatid waxa kugu adkaanayso inaad ka fikirtid qorshe maalmeedkaagii waayo maskaxdii ida daalanba ma fikir karto hawsha qabanaysid kama fikir karto saas limid ahana gacmahayn wax ma aysan qaban karaan oo gacmo ayaga dhan hurdeysan waayo daalan nolosha heer waxa gaari doontaa inaysan waxba qabanin taasoo sababaysa marka waqtigaas maalintaas inuu sidaas kaaga dilmo marka si aad wax u qabato holaha ku furfurmaadaan waxa u baahan tahay jirka inuu haysto resting aad ku filan restingkaas wuxuu ka caawinayaa in jirkaaga markaas uu helo firfircoon iyo nishaad waayo energy badan oo la soo kacaya balse haddii soo jeedid energy-gaaga yaraanayo waxa laga yaabaa xataa haddii shaas shaqada aad ku tagtid inaa maamul isku dhacdin waayo adigoo Soomaali ahay oo aa ogeyn nervous ka ahayd hilibgeelka basata lagu dhahay haddana dhafar ku sii darsatay markaas waxa dhacayso laba eer kadib ina la kacayba nick boss ku ahay inta taas ku wadcin saaxib waxa wanaagsan halkan ina saas oo ah dhafarta ina yireysid waxa wanaagsan marka aad maalintaas qorshe fiican leenahay oo hadwog ina u shaqeyn rabno ina ka fogaana dhafartu waxay dilaa saaxib waqtigaaga dhafartu waxay dilaan saaxib maalintaada fursadaha laga baahnaan maalinta ina ka faa'iideysid saas ka dilmaa oo ka dayacmaan intaas ka dayacmaan waa ina iska ilaalisaa dhafarta cabitaanka aad ba ugu baahan tahay brother marba caajis darantid inay hayso cabitaan ku filan waa u baahan tahay sababtoo ah caajisku wuxuu xirxiraa jirkaaga biyuhuna wuxuu furfurayaa jirkaaga markii cabitaan cabtid nooc walba uu ahaa jirkaaga wuxuu helaa extra energy wuxuu soo saaraa dhiidkaas ugu jirkaaga ay u baahan hoosa hor ku sheegay caajis heerkulka jirkaaga wuxuu ka dhigaa mid normal ah oo ka dhigaa saa darteed marka cabitaan cabtid nooc ahaadba ha ahaado kafee ha ahaado shaah ha ahaado biyo caadi wuxuu jirkaaga u sameynaa shucuurtaasna ugu jirkaaga ay temperature-kiisa saxaya oo jirkaaga ay u baahan waxaan kugu ziyaadanaa energy waana mid ka u baahan tahay saa darteed wax isdhihi karaa cabitaanka wuxuu ka caawinaa inuu jirkaaga furfuro qofka exercise sameeyo oo jimirka uu ka carcar badan yahay qofka oo fadhiidka qofka macnaha aan exercise sameyn qofka exercise sameyn badan waxa la waa qof lazy ah sababtoo ah jirkiisa dhan xirxiran ba aslan shay markuu rabo inuu soo qabto 2 daqiiqo gacanta taaga balse qofka exercise sameey isla markaa ayuu soo qabanay shaygaas saa darteed wax isdhihi karaa ina exercise sameeyay waxa ka caawinaysa inuu jirkaaga dhan uu noqdo mid active ah heegan ah hawliisna maalinlaha u diyaarsan midba mid kale inuu ka dhaqso ku kala tuuro waayo macnaha kaas uu ka firfircoon yahay qofkan kale xubinta qofkan markuu dhaqaajinaa 2 daqiiqo kan wuxuu dhaqaajinaa 1 daqiiqo waayo jirkiisa ayaa u diyaarsan marba oo birta saan dhahayo qofkani movementiisu xawaare ayuu ku socdaa qofka oo markaas access sameynaa saa darteed marka si caajiska iska difaacid waxa u baahan tahay meel ba ku sugan tahay in access sameeyid waa aragtaa dadka designerka ah iyo dadka entrepreneurka ah iyo dadkan oo mataqaanaa oo iskooda guriyada u shaqeystaba routine-ka waxa ku jira in exercise sameeyo exercise waa midka kaliya jirkaaga furfur karo awoodaas leh waa midka kaliya activity xooggan ku sii karo waa maanta waa fadhisaa maanta guriga ku jirta waxa ka yaraana activity-gaaga waxa yaraana jirkaaga dhiidka u soo saaray balse marka exercise sameeysid waxa dhan way ziyaadaan oo marka exercise sameeysid jirkaaga wuxuu helayaa saaxib activity xooggan wuxuu helayaa energy xooggan wuxuu noqonayaa mid fast ah shirb uu qabanaya si degdeg uu qabanaya maskaxda wax walba loo baahan inay ka fikirto si degdeg uu fikiraysa wax badan ay safe garanaysa marka waxa isdhihi karaa exercise waa protect oo isticmaal karto cudurkan ah caajiska exercise mar walba caajis dareentid meesha ku dareentid 2 bush up ku gali brother waxa helaysaa firfircooni marka bush up galis kadib murqaaga fiiri si hore ka duween markan ayaga waxa sameeyaan movement yar sameeyaan macnaha ayaga carcar ay markaas jabi bedel ama dalxis midka ahaato waa ku xali kartaa caajiska macnaha inta buuxa ka saacidaan in markaas firfircooni ah heshay sababtoo ah muhiimadu waxay tahay indhaha waxay qaban jireen wax gudub inay qabtaan indhaha wax maskaxda u gudbinaya sabiraas hadii kuwii hore maskaxda macluum u sameynayso laakiin hadduu yahay mid ku cusub maskaxda waxay helaysaa saaxib jabi kale waa meeshaan ku cusub tusaaleer ah ku sii braad waxa emergency garasa kaliya meesha haadu ku jirto hadii laga wado oo lagu geeyo ground sports ciyaar ka bilaawarto oo la buux maxaa dareemaysaa waxa dareemaysaa nolol ka duwan noloshii hore fikir ka duwan fikirka hore aragti ka duwan aragtida hore
adina waxa kale sa jabi ka duwan jabiyada ku jiri jirtay sidaas limid marka noloshaada wuxuu u baahan tahay marba ilaa sameeyay jabi bedel waxa u baahan tahay xasuuso kale saa darteed simidaas oo sameeyay waxa muhiim ah inaad sameeysid jabi bedel ama dalxiis jabi bedel dalxiis wuxuu kala duwan yahay xitaa baraada dalxiisku wuxuu yahay meel inaad tagto oo ka duwan nolosheeda oo aad soo arki jirtay kadibna waqti ku soo qaatid farxad ku soo qaatid kadibna aad u soo laabatay meesha sida inaad tagtid cadalle inaad tagtid balcad inaad tagtid beerahan afgoo ku yaalan iyo meelahaas inaad tagtid waa meel dalxiis ah jawi bedelkan waa inaad bedeshaa deegaankaaga sida inaad kursiga qaado meesha dhigtid miiska meesha dhigtid ama meesha joogta xaafadda inaad ku gurtid oo meel kale oo gurtid sida inaad muqdisho ka gurtid oo gurtid hargeysa saa darteed labadaba way ka caawinayaan in macnaha markaas aadan caajis dareemin baraad caajis in iskaga xalisid intaasna basigan jecel maanta ku wadaag saaxib hadii aad jecel ku cusubtahay subscribe oo kaliya isaar laagtan video share tano saaxib gaas hadii aad subscribe isaartid